أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله waan salaamayaa meel walba dadka ka joogtiin waqti kasta idinta waxaan la idin wanaado inta kadib soo dhawaada kelmadaha yar ee kooban ama mawduuca yar ee kooban aan jecelahay inaan ila wadaago oo cinwaankeedu yahay iska ilaali cadawga ku dhow. marar badan waxaa dhacday inaan iska ilaalino dad cadawtinimo inoo muujiya siyaabo kala duwan inooga muujiya oon iska ilaalino, balse waxaa jira marar badan cadow badan oo ku dhow oo siyaabo kala duwan kuugu dhow balse iyagu ah cadowgaaga koobaad. dadkaasi asxaab ha noqdaan ama ehel ha noqdaan ama si uun ha kuugu dhawaadaan. dadkaasi waxaa laga yaabaa marar badan inay boholo kuu qodaan ama ay dhabarka kaa joogtaan. way jiraan dadkaasi waxay ku sifoobeen sifada nifaaqa oo aynu qofku boqol waji yeesho, markuu kula joogana kuu qoslo, markuu kaa tegana intaasoo boholood ama intaasoo hog oo kuu qodo. dadkaasi waxay iloobeen inay nifaaqu ay cuqubadiisu aad iyo aad u xun tahay xagga ilaahayna qur-aanka inoogu sheegay uu yiri inal munaafiqiina fi darki al-asfali min an-naar. xataa naarta dadka mushrikiinta lagu cadaabayo way kasii hooseeyaan. wana sifo yuhuuddu lahaan jirtay oo ku kaliftay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inuu ka rara markii dambe yuhuudda madiina, oo taasi oo markii dambe ay noqdeen dad homeless oo bilaa dhula oo daafaha adduunka ku kala daadsan, ay markii dambe loo qoondeeyay inay qaataan qayb ka mid ah Filistiin. والعياذ بالله dadka ilaahay baan ka magan galay, laakiin aad bay u badan yihiin. waxaana waajib inaan iska ilaalino oo taxadir badan muujino. dadkana waxaan leeyahay ilaahay soo hadeeyo. dadkaasi waa dad waliba jumhuur badan imika leh oo shacbiyad badan haysta, oo dadka beenaalaha ah iyo dadka beenta badan leh iyo dadka calaamada sifada nifaaqa leh waxay noqdeen dadka ugu shacbiyada badan imika, because imika corruptionkii iyo fasaadkiiba aad u batay. xilligii nabigu sheegay lagu jira calayhi salaatu wasalaam ee xataa xukunka inta ugu tumi ay tegaysay, corruptionkii iyo fasaadkuna halkii ugu sarreysay uu gaarayay. taasaa keenaysaa inay mar walba helaan dad taageerayaal badan inay dadkaasi helaan, laakiin xaqu mar walba wuu dilaacaa. xaqu isagana mar walba xaqiiqada ah, isagaa dhab ah, isaga ayaana ilaahay walow bacda xiin oo soo daahiriya. dadkaasi waxay waayaan ixtiraamka naftooda marka ugu horeysa, because waa qof naftiisa ka quustay oo aanan qiimeyneynin oona kalsoonina isku qabin. dadka caynkaasi kalsoonida ama qiimo jabnida ay naftooda ka haystaan waxay ku kaliftaa inay dhaqanada noocaas dadka kula dhaqmaan. laakiin inta dadka kale ixtiraam ku sugin, horta adu naftaada ixtiraam, marka ayaad qiimo yeelanaysaa. naftaada aad ku kalsoonow, naftaada mabaadi iyo principles u yeel. mabaadida aad yeelanaysana waxaad ka helaysaa diinta islaamka. hadda si fiican ugu dhaqantid waxaad tahay qof mabda' fiican leh, because mabda'ii diinta islaamka ayaad haysataa dhaqan ah, qowl unan ahayn dhaqan ah. taas ayaa markaa ku waaninayaa. waxaan leeyahay dadkaasi ha ka waantooban ficilada caynkaasa, hana ilaahayna ha u toobad keenaan, because qabri 2 mitir ayaa qof kasta ka dambeeya. maalin kasta waan arkaynaa dad inoo dhow ayaa saa u dhimanaya. next minute inaan inaga noqonayna ma ogin, inaan adduunyo yar oo dhaldhalaal yar oo malaayacniya iyo dan inaan isku yacni nolosha ku seegno, aakhiro ku seegno ma aha. qofka noocaaya haddaad tahay aakhiriya adduunba waad seegtay, halaag ayaana kuu sugnaaday. adduunyada intaad nooshahay qof saraaxada keligaana xataxaad noqo qof saraaxada iyo daacadnimada ku taagan, because ilaahay baa mar walba kula jira. marar badanoo horena waan soo sheegay, keligaa xataa haddaad noqoto ilaahay baa kula jira. qof ilaahay la jiraana wax ka maqan ma jiro adduunka. keligaa haddaad xaqa ku taagan tahay u taagnow baa kulaahay. waxba qof munaafiqo shacbiyad haysta waa dhowr maalmood weeyaan. xaqiiqadiisa isaguna is ogyahay, ummaddiina way ogyihiin. marka ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu xaqa inagu sugo, kelmadeena ugu dambaysana laa ilaaha illa maxamed rasuulullah ka dhigo, diinteenana qowl iyo camal ku sugo. oo waxaan leenahay yaa muqallib alquluub ثبت قلوبنا على دينك. إلهي ونقول سب دين إسلامك إيه حق نقول سب، because دتكم إنك دين تأد بالوجا ديراضي أفكم بدين تنقط. إلهي ودين هذا نقول سب أيام مرور بالنا هاي دتكنا إلهي سو هذيو وحن رباتون كدعاء يحنون نضا دول جريدة ده كوارث كان نشر ديزاستر كيو حن دعاء أردن وعلى إلهي because وحبطي دمتي في السوقية في سهاد كي ببطي وأتحن من الله يا ilaahay dadka u toobad keenan, waliba dadka islaamku ilaahay u toobad keenan ayaan leenahay. wax walba markaas ay ka guuleysan doonaan hadii la yiraahdo. waan ugu celinayaa ka taxadira, kana foojignaada cadawga ku dhow. iska ilaali cadawga ku dhow, kana foojignow mar walba. xaqana mar walba noqon qof ku taagan. aad baan idin salaamayaa. haddii aad ka heshay fariimahayga la wadaaga saxaabtaada. waad ku mahadsantiin waqtigiina qaaliga. dhammaan aad baan idin salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.